sida aad la wada socotaan bah Soomaalida ayaa noqotay muddooyinkii ugu dambeeyay ummad xumaantooda faafisa kuwaas oo ku soo bandhiga miidiyaha habla iyo inababa. haddaba daawadayaal saacadihii ugu dambeeyay waxaa muuqaal laga argagaxa laga faafiyey youtuberka caanka ah ee kinsiike kaas oo lagu faafiyey baraha bulshada Soomaalida, taas oo dad badani la cajabeen intii aragtay ay aad uga xumaadeen faafintiisa, balse dhaliisha ayaa inta u badan la saaraya siike oo muuqaalka duubay kaas oo uu cilaaqaad kula sameynayo gabadh u muuqata inay tahay gabar Soomaaliyeed. dhaliisha u badan wallow hagaadha siikeeye, balse waxay ahayd Soomaalidu in ay u ceeb asturto qofkii uu muuqaalkaasi soo gaadhay inuu u ceeb asturo balse uusan sii faafin, taas oo uu ugu ceeb asturi lahaa balse may dhicin waana uu faafiyey. haddaba wallow muuqaalkan laga qabtay siike wax jawaab ah uuna ka soo bixin ilaa iyo haatan, balse ila xogogaal ah ayaa sheegaya in xaaladiisu ay aad u qasan tahay kadib markii muuqaalkaasi ka baxay youtuberkan iyo majaajilaystahan Soomaaliyeed kaas oo aan la qiyaasi karin xaalka uu hadda ku sugan yahay. haddaba tani ayaa noqotay faraka bax faafinta muuqaalada anshaxumada ah ee ay dadka Soomaaliyeed ka faafinayaan intooda kale amaba si weyn looga faafinaya dadka caanka ah kuwaas oo lagu ugaarsanayo, balse khaladka u weyn ayaa ka jira dadkaas oo iyagu rabitaankooda iskaga duubaya balse filaya marka ay iska duubayaan in uuna iyaga dhaafi karin balse si kastaba uu uga bixi karo. haddaba walaalayaal waxaan si xushmad laydinkaga codsanaynaa in aydaa sii faafin muuqaalkaasi haddii uu ku soo gaadho, haddii uusan ku soo gaadhinna aad ka dhaga iyo indhaba xidhato muuqaalkaas, waayo waa qof walaalkeen iyo walaasheen ah oo xumaantooda la faafiyey ama ha ka qayb qaadan xumaantaas faafinteeda. haddaba wixii intaa ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan. guud ahaan baalahaas waxaa noogaga eeg warbixinteenana tani iyo inta aynu muuqaalkan mid lamid ah dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa amaano Allah.